لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. reer Qorolugud waa salaamantihiin, rag iyo dumarba waa salaamantihiin, wiil iyo gabar waa salaamantihiin. waxaanu idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran ee aa u samayseen xisbigan wadani waftiga ka socda ee aa u taagnaydeen muddada ayaanu mahad kaliya laaba idinka celinaynaa. waxa kale oo aan idinka mahad celinaynaa waxa weeye xubnaha ku soo biiray xisbiga wadani ee ka soo digarogtay xisbiga kulmiye ee gartay inaanay cadceeddu ugu soo bixin meel abaara. xubnahana waa soo dhowaynaynaa. waxaan ka marag furayaa anigoo muddo ku soo jiray talada ama siyaasadda dalka arrintii la yidhi Qorolugud cidday raacdaana waa guulaysataa, cidday ka hadhaana waa guuldarraysataa. markhaati baan ka ahay doorashadii 2003 udub waxay ku faa'iistay codkii Qorolugud. doorashadii 2010kiina kulmiye wuxuu ku faa'iiday codkii degmada Qorolugud. markii Saleebaan iyo halkaa garaadag heshiisku dhacay ee ay naga leexdeen xubnihii cuscuslaa reer Qorolugud markaasay udub guuldarraysatay. marka maantana waxaan ku rajo weynahay in maadaama Qorolugud ku soo biirtay oo ay taageerayso xisbiga wadani in wadani guulaysanayo. waxaan doonayaa inaan idiin sheego qodobka labaad oo ah maanta socodka iyagu ololo ma ahayn campaign. waxaannu u soconnay inaannu idinka wacyigelinno kaadh qaadashada inaannu idinka wacyigelinnaannu u soconnay. haddii aad jeceshihiin waaba jeceshihiine xisbigaa rabtaan inuu soo baxo waxaa loo baahan yahay ciddii isdiiwaan gelisay meel kastaba ha joogta inay kaadhkeeda qaadato si cidda ay jeceshahay ay u soo saarto inay soo baxdo. haddaan kaadhka la qaadan xisbigaa la jeceshihiin siiba wadani oo maanta aa ku soo biirteen guulaysan may haddaan idin kaadhka qaadin. si aynu u guulaysanno waxaa loo baahan yahay in kaadhka la qaato, lagu dadaalo, qof waliba halkuu joogay laga soo saaro, hal kaadhi aanu inaga afqudhmin ama inaga khasaarin. waxa kaloo aan halkan dareemayaa dhowr goor baan imi intii aan taladii xisbigii hore ku jirray ama xukuumaddii hore. magaaladan markaan qiyaaso waxay igu dambaysay 2009kii 7 sannadood ee xisbiga kulmiye gacanta ku hayay way ii muuqataa inaan waxba ku kordhin. waan ka markhaati furayaa hadday waddo tahay iyo hadday tahay waxqabad kale inaan waxba kordhin. haddii alla yidhaahdo waxaa la ballan qaadayaa hadday waddo tahay iyo hadday waxqabad kale tahayba isbeddelku waxa weeye waxa asaasiga ee dadku u baahan yahay ee laga gaabiyey kulmiye ka gaabiyey in laydiin qabto. waxaan idinka mahadnaqayaa ku soo biiritaanka ama garashada ha garateen maanta kulmiye wakhtigiisi inuu dhammaaday oo dee dawadu markay wakhtigeedu kaa dhacday dhammaado waa la iska daadiyaa waa la iska tuura haddii kale waad ku dhimanaysaa. oo ha garateen cidda kale ee maanta wax idin tari karta ha garateen sidii odayaashii ay codsadeen siday odayaashu codsadeen waxaannu ballan qaadaynaa sidii hore idinku dhacday marka laydinku guuro inaan laydinka guurin ee inay sidaa imakaba laydinku soo gurmanayay iyadoo xisbi yahay xisbigu waa xitaal yar haddaan xukuumadda ahayn in laydiin soo gurman doono. waxaad tidhaahdeen oo aan ku ogahay reer Qorolugud inay abaalna gudaan. waa ballan qaadeen xisbigii idiin soo birmaday inaa u abaalgudaysaan. waxaad tidhaahdeen nin i xooray maalintan xumaa ama se xaasaamay ka xiltiray xanaanadii anigoo xoog leh. soo sidaa maaha. waxaynu isku ognay waxa weeyaan waa waddani. waxaynu isku ognay waxa weeyaan geesinimadaa laydinku yiqiinnay. waxaynu isku ognay waxa weeye badheedhihii laydinku yiqiinnay. waxaynu isku ognay waxa weeye in kaadhkii la qaato oo aan xabad kaadhi inaga lumin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.